بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كسو دوادا مركلة إيو حلقات كلا إيو برامج كيني سرطة نولوشا آلابا وحيني برامج كان كهذا الله مواضيع أي نسلين هاي وحوين كتريان بفكر كينا إيو نلو المعلومات كينا حلقات تان وحينو ديرد كساري دونا موضوع بليه قدام بيي innaga iyo dhammaanba adduunka runtii si aad u gilgilay maanta waxaynu ka hadlaynaa waxyaabaha ka bini aadan ahaan ka shakhsi ahaan iyo ka qof ahaanba aynu ka baran karayno xanuunkan loo yaqaano coronavirus ama covid-19 afartii bilood ee u dambeeyay baa xanuunkani ka dilaacay gobollo kala gedisan oo adduunyada ka mid ah oo isaga oo ku soo horeeyay marka hore China xanuunkani muddadii uu dhex socday ummadaha kala diimaha ah kala dhaqanada ah ee kala dawladda ah ummad kasta sibay uga jawaabaysay sibaanay uga falcelinaysay waxaanu doonaynaa markaa maxsuul ahaan haddii ilaahay caafimaad iyo badqab inagu dhaafiyo xanuunka kani waxyaabaha aynu ka faa'iidi karno ee cashar ahaan aynu ka guntan karno baan doonayaa inaan maanta erey iyo laba ka yiraahdo wacyigelin isaga ku saabsan hanaanka lagaga hortagayo ku saabsan hanaanka la isku ilaalinayo ku saabsan barnaamijyo kale iyo xalqado kale baa u daaran oo taasi qaabilsan waxaan doonayaa cashar ahaan maxaynu ka baran karaynaa inagu waxa kolka ugu horeeya ee aynu ka baranaynaa casharka ugu horeeya ee aynu ka baranaynaa waxa weeyaan in qofku dhiman karo dadyo badan baa isu haysta inaanay dhiman karayn se markay arkaan kii adduunyada magaranaysa ugu sareeyay ugu teknolojiyad sareeyay inuu dhimanayo dadyo badan oo maskaxdooda inay dhimanayaan aanay ku soo dhici jirin baa ka fikiray inay dhiman karaan sidaas darteed qofku wuxuu u diyaar garoobayaa inuu adduunyadana wax kaga tago wax macnala kaga tago aakhirana wax macnala iska sii horeysiyo kulka casharka ugu horeeya ee aynu ka baranayna wax weeyaan waxay ina xasuusisay lagana yaabaa culimo badan sidii leeyihiin ujeedadeedu ay tahay ilaahay ujeedada uu ka wada ay tahay illa ina xasuusiyo war niman yahow waa dhimanaysaan meel baana u socotaa meeshii xasuusnaada halkan isku ilaabinay ujeedada labaad ee laga dheehan karo xanuunka caynkan u fiday ee la maareyn kari waayayna waxa ka mid ah inaynu bini aadan nahay bini aadanku si kastoo uu horumarsan yahay si kastoo uu teknolojiyad u garanayo iyo cayn kasta oo adduunka koobaad uga tirsan yahay haddana qofku waa bini aadan allihii lahaa wuxuu tusayaa kolkaasi in qofkan bini aadanka ah inta ka dhimani ay markasta ka badan tahay inta uu garanayo waa sidii la sheegay kolkaasi haddii ma garanaysayay virus yar oo intaasoo kun oo sano la baadhayay oo aynu hayno intaasoo virus oo kale oo u noocad eeg oo caynad eeg in haddana aynu isagii yaraa maareyn kari leenahay oo ilaa imika la garan laayahay hababka kala gedisan ee uu ku fido bar waa la garanaya laakiin ilaa imika aan la dhammaystirin dawadiisii aan ilaa imika lahayn tallaalkiisii aan lahayn iska daa dawo iyo tallaale in isaga la magaranaysayo waxaa genetically ama si genetic ahaan in loo baadho ilaa imika la awoodi kari laayahay baa wax weyn ah marka qodobka labaad ee ayna xasuusisaa waxa weeyaan bini aadan baynu nahay bini aadankuna markasta wax ma maareyn karo inta uu arkayana inta uu ilduufaya ee ka qarsoon baa ka badan taas waa ujeedada labaad ee aan isleeyahay waxaynu ka faa'iidi karaynaa xanuunkan coronavirus ujeedada saddexaad ee aan ku darayaa taasi waxa weeyaan waxa la ogaaday bini aadanku inuu yahay shayga ugu qaalisan ee la maalgashado shirkadaha iminka aadka u qoomameynaya waxaa ka mid ah shirkadihii dawooyinka samayn jiray shirkadihii dawooyinka samaynayay 10 sano ama 20 sano ee u dambeeyay may gelin kharash mushahaaro badanna may siin jirin dadka saynis yahanada ah dad waxay lacag badan gelin jireen dhaqaalaha iyo suuqgeynta iyo waxaan retailka la yiraahdo waxyaabahaas ay kharash badan gelin jireen laakiin dadkii saynis yahanada ahaa ee xanuunadan baari lahaa lama maalgashan sidaas darteed waxa automatically yaraatay dadkii sayniska
sayniska sooca ah ama pure sayniska dadkii baran lahaa ee jaamacadaha ka soo baxayay baa yaraaday maadaama aanay suuq badan lahayn. shirkadihii farmasiyadu ama shirkadihii dawooyinka sameynayay waxay aad uga qoomamaynayaan iminka in aanay haysan sanadihii u dambeeyeyna aanay soo saarin dad waxaan ku takhasusay oo ay mushahaaro fiican siiyaan. marka qodobka saddexaad waxa weeyaan business kasta, ganacsi kasta, arrin kasta oo aad ku jirto waxa qiimo weyn leh ma aha sawirka iyo marketingka iyo suuqgeynta, laakiin waxa sawir weyn ka qaata cidda ay waxani ku xidhan tahay oo ama saynis yahanada ah ama macallimiinta ah cidda ay waxani ku xidhan tahay. waayahay arrinka afraad ee laga baran karaa waxa weeyaan shaashadaha badanka waxa inoo soo fadhiista dad kala gedisan oo ama ciyaaraha ah, ciyaaro ku guuleystay, dad heesa oo ku guuleysanaya awaadka heesaha, dad ma garanaysaa ganacsiyo kale. waxa la ogaaday ganacsiga rasmiga ihi inuu yahay dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo macallinimada iyo jaamacadaha. waxaa dib loogu soo noqday dadkii socialka ku jiray ee shaashadaha haystay ee filimaanta iyo heesaha iyo ciyaaraha iyo entertainmentka kala gedisan ku jiray inay ka muhiimsan yihiin dadka lafdhabarta u ah bulshada. marka waxaa la kala ogaaday xanuunkan gudihiisa dadkii lafdhabarta u ahaa bulshada oo dhakhaatiirta iyo macallimiinta ahaa. dadkii kale ee ayna madadaalin jirayna guryaha lagu soo xidho wayse soo xidheen. waayahay arrinka shanaad ee laga faa'iidi karaa waxa weeyaan waxa uu dib u soo celiyay xiriirkii ka dhaxeeyay dadka iyo reerahooda. dadkii markii lagu yiri guryihiina jooga waxa uu qof kasta waxa la sheegayay iminka dadyoogan qaylaa inay dib u baranayeen caruurtooda iyo dugsiyada ay dhigtaan iyo fasallada ay yihiin. markii guryaha ku jira laynagu yidhi waxa dad badani ay yeesheen oo xiriir fiican la yeesheen ama xaaskoodii ama caruurtoodii ama ma garanaysaa lamaanahoogii bay xiriir fiican la yeesheen. shayga u dambeeyaan isleeyahay waa laga faa'iiday waxa weeyaan waxa la bartay oo shaashadihii soo fadhiistay dadyowgii dadka midayn jiray, waxaana laga hadlaa iminka mawaadiicda dadka mideeya. badanka waxaad arkaysaa shaashadaheena siyaasiyiin kala reeraa soo fadhiisan jiray, waxaa soo fadhiisan jiray dadyow kala calamasita, waxaa soo fadhiisan jiray dadyow kala diimasita, waxaa soo fadhiisan jiray dadyow kala dhaqan sita oo iyagu ismaagaya, iyagu iska soo horjeeda. arrintan caafimaadka iyo waxay keentay diintaad doonto hayso, afkaad doonto ku hadal, meeshaad doonto ku noolow, calankaad doonto sido, qabiilkaad doonto ahow. waa arrinku saamaynaysa ku dili karta adiga iyo reerkaaga iyo cid kasta ood lexejeclo ka leedahay wax yeeli karta. sidaasi darteed mawaadiicda telefishinada iminka lagaga hadlaa waa mawaadiic dadka lagu midaynayo, bini'aadantinimada lagu midaynayo, qofku waxa uu yahay iyo qudha go'aysa muhiimadeeda uuni ay tahay wax aad iyo aad u sarreysa. taasi waa qodobada ama inaha aan isleeyahay xanuunkani inaga baxaya ama inala joogiya waa waxyaabaha aynu ka faa'iidi karno. tan iyo inta aynu isugu imanayno barnaamijkan la mid ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ilaahay idin sharfo dhammaantiin.